waxaa kelimada la ii dhiibay ay tahay inaan ka hadlo qur'aanka kariimka qur'aanka kariimka waa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala wa innahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu alamiin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إلهي سبحانه وتعالى sidaas ayuu noogu magacaabay noogu sheegay noogaga warbixiyey qur'aanka kariimka waxa uu yahay rabbi alcaalamiin ayaa soo dejiyey wuxuu u soo dhiibay malaga sharafta leh ee malaku jibriil الروح الأمين سي أمانة له أيو أسو ورجيه وحنا كسو تجيه قلبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكو ديجي هاي وكسو ديجي وقد عربي وعد وفصيح أيو كسو ديجي وحلو سو تجينا إلا يلوغو ديجو بني آدم كأردن لوغو ديجو looguna bishaarayo dadka raaca loogu bishaarayo raalinimadii ilaahay iyo janno inay helayaan dadka ka hor yimaada ama ka leexdana cadaab inay leeyihiin iyo nolol xun adduuniya aakhiro kitaabkaasu waa kitaabkaas asalkiisa iyo dhammaadkiisuba ay sidaas tahay dadka loo soo dejiyey waxaan ka soo qaadanayaa hal aayad keliya ayaan ka soo qaadanayaa taas ayaana hadalkayga ku koobaya insha allahu tacaala maadaama culimo badani ay meesha fadhido oo hadli doonaan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fi suurati almu'minuun laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi dikrukum أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم أنك أنا الله الله يا ضدك اللوسو دجيه كتاب كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو صدري كتاب كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا صدري ضدك أو كسو دجي ضدك أو كسو عضو أو أينو كم بدنهاي ومداس والنبي محمد عليه الصلاة والسلام صوب بحيتان كيسي كذب وكتاب كأوجدين يؤردن أي الله عليه الصلاة قال أهانا ومد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسكار الله عليه الصلاة لا يوحل لي وحن إذن سود الجني والرسول كان شرفت لي عليه الصلاة والسلام لا سود الجني لا صدرنا كتابة هل كتابه كتب بدن معه oo aad ku qaldantaan ma aha waa hal kitaab wey kitaabkaas 30 juz ah 114 suuradood ka kooban 114 suuradood waa tirsan tahay 6600 iyo gogo oo aayadood ah laqad anzalna ilaykum wa ta'kiid wa hubanti waxaan idin soo dejinay wuuna idin soo gaaray waadna aragtaan waadna haysaan kitaab baan idin soo dejinay oo idin soo diray sharaf leh cad 114 suuradood 114 chapters ka kooban this book contains 114 chapters of the Quran 114 suuradood way tirsan tahay mid walba magac bay leedahay mid walba aayado kooban bay ka kooban tahay tirsan waa waadix marka heshiiska the agreement is very clear the condition is very clear shardiga lagu sheegayo iyo waxa lagu sheegayo waa cad yahay ma wax mugdi ku jira ma wax mugdi ku jira la garanayo beeqo aha suuradood buu aha maxaa la dhihi jiray aayadaha ku qofkooban maxay tahay maxay ka hadlayaan maxay sheegayaan you can never say that everything is clear in this book واضح luqad
عد بكقرية عربية بلسان عربي مبين لغة فصيحة أو عد بكقرية very clear in Arabic language marka kitaabkaas baan idiin soo dejinay idiin soo dirnay inaga laynagu leeyahay waayahay kitaabka maxaa ku jira laba kelmadood buu ilaahay ku koobay laba kelmadood kitaabka qur'aanku waa mucjis ma taqaanaan waxa xaraf walba alif laam miim saddex xaraf wey alif حرف لام حرف ميم حرف مد والب 10 حسنات لو سينا 10 حسن مركا اخرنس مد والب حرف والب بكل حرف حسن ما قرنيسان معناها وهو الهي اجرك ugu bixiyay waxa la rabaa inaad wax badan akhriso waxa ku jira mucjizaad waxa ku jira cilmi waxa ku jira aqoon waxaa ku jira xikmad waxaa ku jira nuur waxaa ku jira caafimaad waxaa ku jira sharaf waxaa ku jira horumar waxaa ku jira rizq waxaa ku jira dhaqaale waxaa ku jira wax walba oo wanaagsan ayaa ku jira wax walba oo fiican ayaa ku jira sharaf adduun iyo sharaf aakhiro ayaa ku dhan saas darteed ayuu qiimahaas leeyahay halka xaraf ayaa ajar lagu siinayaa markaa كتابا فيه ذكركم لبدا كلمة دوت بو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كان واحد وحبار سيوش إيه وحا أتكهليسو محاد كهليسان فيه أي كتاب كاس آن إذين شكل أي بقول إيه عفر إيه طبعا كالصورة دولا اللي حكون إيه لحظة بقول إيه آي دولا وحان إذين شاقينا waxaa ku jira dhexdiisa sharaftiina magaciina korukiciina horumarkiina caafimaadkiina quruxdiina cizzadiina ummadaha inaad ka hormartaan ummadaha inaad ka sarraysaan ummadaha inaad ka sharaf badataan ummadaha inaad ka hodansanaataan inaad ka qanisanaataan inaad ka horaysaan ومرنا إننا كدرمين ذكره كاسوي فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم فيه رزقكم مركز إلهي وحقوقكم أفلا تعقلون وحاسب من وحي كجران هداد راعي ويدان مع عقل بالذي عقل مريك sideebay ku dhacday haddaad caqli leedihiin inaad isaga intaad ka tagtaan kitaabkaas aad wax kala qaadataan wax kala raacdaan oo wax kala hoggaansataan oo sharci wax kala ka dhigataan oo nidaam wax kala ka dhigataan oo qaanuun wax kala ka dhigataan oo magac meelaad ka raadisaan wax kala ka dhigataan sidee ku dhacday waxay ku dhici kartaa hal shay kaliya bas inayna caqli lahayn caqligiinu inaan marka walaalayaal ummadda islaam gaar ahaan dadka hadda aan la hadlaayo oo afkan aan ku hadlaayo garanaya ee ummadayda ah ee ummadda Soomaaliyeed aayadaas baa inaga filan kitaabkan muxuu yahay muxuu xambaarsan yahay dadka qaata oo raaca maxay ku helayaan sharaf iyo ciz iyo horumar iyo badbaado adduun iyo aakhiro iyo iftiin hadday ka tagaana dad caqli leh maaha dhanka kale ay u rugmayaan dulli iyo fakhri iyo cudur iyo dhib iyo turunturo iyo mugdi iyo dhibaato iyo dib u dhac iyo waxaas ku jiraya waa intii cizada iyo sharafta iyo hodannimada iyo qaninimada iyo caafimaadka iyo iftiinka iyo cilmiga iyo nuurka laga heli lahaa bedelkeeda opposite of that ayay noqonayaan idinkaan idiin daynayaan natiijada inaa xukuntaan haddaan raacnay waxaa la rabaa meesha inay ka muuqato cizo iyo sharaf iyo magac iyo maamuus iyo ummadaha dhexdooda laga horeeyo ummadda islaam inay tahay hadday ka tagto kitaabkaas 114 suuradooda oo sharaftoodaas iyo waxaasoo dhammi ku jiraanna
وأنا مدح كرو قادم لنك كلا أي نقنيان حالة مركب ما يشوف كل سبحان تهاي وين كجران كرنا وحين كجران كرنا حالة اللي بسميها سببتنا محيط هاي عقل جيما شبينه لما ميلود أو ميلتاس هاي iyo aayad kaleeto oo aqliga iyadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka aan raacin uu ka anfiyay inaan aqli lahayn waxa weeye aayada suuratul hashr ku jirta tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun bi Ilaahay subhanahu waxaad u malaysaa dad wada jira oo isu eg isku mid ah isku afa isku luqa ah isku dhaqan ah isku nidaam ah isku deegaan ah isku gobol ah isku meel ah isku waxa isu eg oo ay imanaysan yihiin aad moodayso waxa soo dhigay kamidaysan wa qulubuhum shatta qalbiyadooduna waa kala jiraan waa kala tagsan yihiin maxaa dhacay maxay sababtaas ku dhacday waa dad aan caqli lahayn buu Ilaahay dadka dantooda aan u kulmi karin oo waxaas kulmiya oo dhan aan u kulmi karin oo u midoobi karin caqli ma leh haba yaraat caqli ma leh caqli waa mushkil walaalayaal dardaarankaygu waxa weeye kitaabkaas baa sharafta iyo horumarka iyo caafimaadka ummadaha ama caafimaad bulsho ha noqoto ama caafimaad cudurro ha noqotee ama caafimaad siyaasad ama caafimaad dhaqaale dhinac walba caafimaadka iyo sharafta iyo magaca ummadan wuxuu ku jiraa kitaabkaas ku jiraa anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hadaydina qaadan dad aqli lamatihin afala taqil idina aqliis si uga tagteen kaas sharaftaas oo wax kale uga doorateen ayuu ilaahay leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala muassasadan cusub ma iskuulkan dugsigan cusub inuu insha Allah ta'ala sidii dugsiyo horeba oo jiray oo maaragtay magacaad kitaabkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala kor u qaadaya diinta islaamka jiil ama bulsho kamid ah soo saaraya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo waxaan insha Allah u dardaarmaya maamulayaasha iyo macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta in lagu dadaalo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xagga manhajka dugsigaas insha Allah ta'ala iyo waliba fahamkiisa garashada kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma fi xifdiga kaliya ma xifdiga kaliya laakiin garashada iyo fahamka suuratul faatiha kaliya ardaygu inuu si fiican u fahmo oo garto waxa tawxiid ku jira waxa akhlaaq ku jira waxa cibaado ku jira waxay ka fiican tahay inuu faariq ka yahay laakiin uu xifdisan yahay marka in lagu dadaalo ardayda insha Allah ta'ala in kitaabka Ilaahay la jeclaysiiyo ay jeclaadaan oo ay akhriyaan oo ay fahmaan in lagu dadaalo waalidiintuna inay ku dadaalaan ilmahooda kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay kula dadaalaan inay fahmaan kitaabka Ilaahay inay gartaan risaalada Ilaahay baa sharaf ku jirta kitaabka Ilaahay baa sharaf adduun iyo aakhiraba ay ku jirtaa hadii isaga laga leexdana sharaf adduun iyo sharaf aakhiro midna la heli maayo Ilaahay tawfiiqdana waafajiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala iskuulkan iyo qaa'imiintiisa iyo macallimiintiisa iyo ardaydiisa iyo waalidiintiisa inta Allah barakeeyo Ilaahay tawfiiqda waafajiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa kuwa kor u qaada Allah ka dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhammaanteen kuwa kitaabkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharaftiisa raaca oo hela oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyo aakhiraba uu Ilaahay ku siiyo Allah naga dhigo sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi